War degdeg ah daawadayaal warka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay xilka ka qaadeen Congress-ka oo ay hormuud u tahay Ilhaan Cumar ayaa la sheegay inay ka mid tahay dadkii ka gudbiyay xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka isla markaana maanta uu codeeyay in xilka laga qaado balse daawadayaal intaan u gudagelin barnaamijkaas oo dhameystiran halka aad nagala socotaan waa Masaal Media fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saaro calaamada gambalelkana ha hilmaamin si aad u noqoto daawada ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyada aan baahino sida ay sheegayaan wararka ugu waaweyn warbaahinada wadanka Mareykanka sida telefishinada Al Jazeera iyo CNN oo si aad looga daawado dunida dacaladeeda ayaa baahinaya maantay in Ilhaan Cumar ay ka tahay dadka ka gudbiyay mooshinka xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka oo ah madaxweynaha ugu awoodda badan dunida aan maanta ku noolnahay wararka ayaa sheegaya in Ilhaan Cumar ay mooshinka ka gudbisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ka mid tahay kadib markii uu ku soo rogay xayiraad dadka muslimiinta iyo sidoo kale oo Soomaalidu ku jirto isla markaana si aad u bartilmaameedsanayo dadka Soomaalida ah Ilhaan Cumar ayaa ka mid ah dadka uu madaxweynaha Mareykanku horey u sheegay in laga musaafiriyo wadanka Mareykanka balse maanta madaxweynaha Mareykanka ay godkiisa biyo ugu soo galeen isla markaana qofkii uu yiri halaga musaafiriyo wadanka Mareykanka ayaa noqotay inay xilka ka qaado isla markaana maanta loo gudbi doono golaha sanadka isla markaana ay ku ansixi doonaan xilka qaadistiisa dhanka kale wararka ayaa sheegaya in haddii madaxweynaha Mareykanka ay suuro gasho in sanadku ay ku raacaan Congress-ka xilka qaadistiisa inay u noqon doonto madaxweynaha Mareykanka fursadii ugu dambeysay oo ku hogaamiyay wadanka dunida ugu awoodda badan ee Mareykanka ama United States haddaba Ilhaan Cumar ayaa la sheegay inay u ololeysay muddo sanad ah sidii xilka looga qaadi lahaa madaxweynaha Mareykanka isla markaana lagu soo oogi lahaa dacwad ka dhan ah xuquuqda insaanka iyo sidoo kale arrimaha qaxootiga oo madaxweynaha Mareykanku hor istaagay isla markaana la sheegay in dad badan oo family ay isla yihiin ilaa iyo haddana aysan isku tagin waa sida ay sheegeen warbaahinta dunida maanta inay qorayso waxa page-ka hore haysta Ilhaan Cumar isla markaana lagu falanqeynayo awoodda ay leedahay gabadha Soomaalida ay ka tirsan Congress-ka haddaba haddii madaxweynaha Mareykanku ay ka qaadaan sanadku xilka oo la leeyahay waxa u badan xisbiga isagu ka soo jeeda ee Jamhuuriga oo sidoo kale ay sheegeen inay madaxweynahooda difaaci doonaan ayaa haddii ay suuro gasho wuxuu wey doonaa inuu wadankaasi sii hogaamiyo waxaana wadanka hogaabi doona madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Bombay oo sidoo kale hogaami doona wasaaradda arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga madaxweynaha Mareykanka ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee xilka qaadis lagu soo oogo isla markaana kursiga asagoo fadhiya laga gudbiyay dacwad ka dhan ah inuu awoodda wadanka ku xadgudbay isla markaana uu jabiyay dastuurka wadanka Mareykanka u yaala lama saadaalin karo sida ay ku dambeyn doonto xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka isla markaana ay hadda sugayaan in ay dhageystaan xilka qaadistiisa golaha sanadka oo aqalka sare ah isla markaana la leeyahay waxa ay u codeyn doonaan inaan madaxweynaha xilka laga qaadin haddii sanadku ay u codeeyaan in aan madaxweynaha xilka laga qaadin wuxuu u gudbi doonaa golaha odayaasha ama aqalka odayaasha oo ka kooban 9 xubnood isla markaana waxay dacwad geey doonaan Congress-ka oo ay ka tirsan tahay Ilhaan Cumar maxkamadda wadanka ugu sarreeyda isla markaana ee federaalka ah halka oo lagu qaadi doono dambiyada lagu soo ooga madaxweynaha kadib haddii lagu helo dambiyadaasi maxkamadda sare ayaa amri doonta in madaxweynaha Mareykanka uu is-casilo isla markaana lagu soo oogo dacwad ka dhan ah in uu jabiyay dastuurka wadanka Mareykanka sidoo kalena uu ku xadgudbay awoodii xafiiskiisa uuna sidoo kale ku cadaadiyay wadamo shisheeye inay baaraan ninka kula tartami doona doorashada soo socota ee 2021 isla markaana haddii lagu helo dambigaasi waxa uu kursiga banayn doonaa madaxweyne Donald Trump sidoo kalena waxa loo diri doonaa maxkamad military halka oo lagu xukumi doono wixii uu ka helo dastuurka wadanka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu eedeynayaa inuu dhigiisa wadanka Ukraine weydiistay in ay baaraan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama xilligii uu wadankaasi taladiisa hayay iyo wiilkiisa Biden oo la sheegay in ay ka shaqeynayeen warshad soo saarta
shidaalka ee ku taala wadanka Ukraine isla markaana ay musuqmaasuq iyo waxyaalo isdaba marina oo madaxweynaha Mareykanka ku eedeynaya arrimahaas oo wax cadeyn loo hayn haba yaraatee dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxay suuragal tahay inuu iscasilo hadii ay arrinta sanadku u muuqato in looga awood roonaado isla markaana waxay noqon doontaa madaxweynihii saddexaad ee wadanka Mareykanka laga soo gudbiyay dacwada soo kursiga fadhiya laguna soo oogo inuu awoodda wadanka iyo dastuurka wadanka jabiyay isla markaana ku xadgudbay xafiiskiisa arrinta kale ee sida la yaab kale ee noqotay ayaa ah in arrintaani markii ugu horeysay ama fikradda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka ay ka timid xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka sidoo kalena sheegtay in loo baahan yahay in wadanka Mareykanka siyaasadiisa la badbaadiyo maadaama wadanka Mareykanka la leeyahay wuxuu hadda wajahayaa xaalad midii ugu xumeyd 100 sano ka hor ay sidaan oo kale ahayd markii madaxweyne xilka haya lagu soo oogo dacwad markii uu sameeyay wax isdaba marin iyo awood u sheegasho sidoo kale waxaa la leeyahay xisbiga madaxweynaha Mareykanka uu ka mid yahay ee jamhuuriga ayaa aslan bacaado oo ah markii ay kursiga qabtaan in ay ku dhaqaaqaan fal dambiyeedyo halis ah balse daawadayaal muuqaalkeena haddii aad daawanaysa channelkana ku cusub tahay subscribe saaro calaamada gambalelkana ha hilmaamin waa ku mahadsantahay daawashadaada channelka